moogtahay in kuwan yihiin shaqooyinka adduunka uga cabsida badan ee laga shaqeeyo. kow lineman, shaqadan waxaad ka shaqaynaysaa waa leydhka, weliba biraha iyo xadhkaha hawada sare maraya ayaad ka shaqaynaysaa. dadyoga shaqadan qabtaa waxay hagaajiyaan amaba cilad bixiyaan kolba dhibaatada ku timaada xadhkaha ama fiilooyinka gudbiya leydhka. marka la eego leydhka iyo meesha ay ku yaalaanba waxay ka dhigaysaa shaqadan mid halis badan. laba window cleaner, nadiifiyaha daaqaduhu waa mid ka mid a shaqooyinka ugu culus uguna halista badan. mar walba waxaad koraysaa dabaqyo dhaadheer adigoo nadiifinaya dhammaan daaqadaha gudaha iyo dibaddaba. haddii aad ka soo dhacdana amba aad ka soo siibatana waa adiga yaa lahaa, xitaa wejigaaga lama aqoonsan doono. sababtuna waxay tahay dhararka meesha aad nadiifinayso oo aad u dheer una halis badan. saddex commercial fisher, kalluumaysatada ka ganacsada kalluunka, iyaduna waa mid ka mid a shaqooyinka ugu halista badan ee laga shaqeeyay abid. waxay ku jirayaan badda mararka qaarkii maalmo iyo wiigag iyagoo qaata dhammaan saadka iyo cuntada iyo agabkay u baahan yihiin. waxaa ka dhigaya shaqadan mid halis badan ayaa ah hirarka iyo duufaanada badda ka kacaya, taasoo laga yaabo in dadka iyo doomuhuba ay ku qarqoomaan kuna naf waayaan. afar miners, macdan qodidu waa shaqo halis badan taasoo dhan kastaba aad khatar halis ugu jirto. waxay qodaan oo ay hoos u galaan dhulka iyagoo la kulmaya hawayaraan, cidhiidhi, xitaa mararka qaarkii waxaaba laga yaabaa inay ku dumaan meelaha ay ka qodanayaan macdantu. sidaas awgeed waxay ku jirtaa shaqooyinka ugu halista badan ee laga shaqeeyo. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, haddii lagu dhaa shaqooyinkan mid waa inaad ka shaqaysaa, tee ayaad dooran lahayd oo aad ka shaqayn lahayd? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad falow noo saarto youtube-ka iyo facebookka brofilka saaranna aad subscribe dhaado.